madax xanuun ka weyni ma jiro waxay markay ugu maqaalaha inay gadaal qunyar ku soo laabanayso fanki reefs waxaan ku leeyahay qalbigaad fakhri ka tay qalbigaad aad fakhri uga tay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha aad iga samaynaysa intaad halkaa ay ku soo laabanayso maalmihii hore waysa asturi jirto sidan bay samayn jirtee iminka snap iyo howlahaasaa lagu mashquulsan yahay kamarad hawl u gashayood kamarada u soo qaadatayood ummad dhan oo ku daawanaysa aad been u Madis Media Production. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان تاوديشن داونيا جنرال كان داونيسا وماديس ميديا كسود بعض مقال عصب ماد برنامج كأيديه إنه حاوي ومعها براه برشيد لحورية حمد كوين يوتيوب كان لها تح فيلمز وتجار كلا دعي أما تجار كلا نحيو سدا كور قمنا حمد كوين وحي فيو إذا كشيت كلام في الصومالية in funky iskaga daysay sababo jira awgeed balse funky ka fadhiisatay balse dhawaan waxaa dhacday in youtube-ka la dhahay Dex Films oo Hargeysa inuu soo bandhigay xog ah in Xamdi Kuwiin nin aroosi rabay awgeeda u joojisay in funky ay ku sii jirto balse guurka looga baxay arrinkaas ayaa waxay ka carootay ama ka careysiisay Xamdi Kuwiin oo iyadana jawaab soo bixisay marka muuqaaladaas ay isla eegi doonaan jawaabihii iyo hadaladii ay isdhaheen aan ku hormaro horta muuqaalka Dex Films oo dhahayaan Xamdi Kuwiin nin ay aroosi rabay awgeeda ayay ugu joojisay fanka balse guurka ayaa looga baxay aan fiirino muuqaalka halkana عصبي واحد رولو أرجع صوت بعمر كسولة بتيجي كنيتي فانكي مكبح مرجع حبيبة سيابك الدوام بحوجها الوجهين واحد بقى مقلي أو الحوجة وها إن أي كان عصيب لابسه إن أي كل عصبي كليسو أي حاجة عصب نرشح لابس وقف كنت إسكوا تاجرني أنا ما تدك يا هذا السفر والله إسكوا فدي والله يا مش أهاي لكانوا أنا سلام ما حالي يقف كلون بس وصلوا بوسادة لي عند وعقلها wiilka wuxuu leeyahay Xamdi Kuwiin sida xoog badan ah helay wuxuu leeyahay Ethiopia aaday muuqaal qurux badan ay soo bandhigtay oo heeso cusub ah iyadoo sidaas lagu ogyahay ayaa isla markaa waxa soo dhacay war ah inay iska joojiso fanka balse xoog hoose ah helay ayuu leeyahay waxaan ogaaday inay sameeyso rabto ganacsi ama ay sameeyso rabto ganacsi sidoo kale ay rabto inay aroosto hadalku sidoo yiraahdo waa ku sii socon شنو قاعد يسوي سيدي هذه الجانب الوظيفة يستورني على يستورني على يسبقني على حوية وحي تقدر إليه شروط الشرطي كانوا حجالي عدينا سوى فرطو الإسراع wuxuu leeyahay labada qof markay aroosayso waxaa jirta shuruudo labadaas qof isku xiraan base shuruudahan oo soo bandhigi doona waxaa umaleynaa Xamdi Kuwiin shuruudaha lagu xiray inay ka mid tahay in fanka iska joojis siduu leeyahay waay aan ku sii socono waxaan raacay jeel xukunaysaa ciyaartoy ganacsada waxaa iska looga waxaa iska liibaanaysan wuxuu kala dardaartay dee inay fanka kusii jirto maaha waa inay ka baxdaan wuxuu leeyahay qofkii Xamdi Kuwiin inuu guursado wuxuu ahaa nin ganacsada oo businessman ah wuxuuna ka codsaday xaajigaasi in Xamdi Kuwiin ee fanka iska joojiso sidoo hadalku leeyahay wiilkan hadalkan waxaa ka carooday Xamdi Kuwiin oo iyadana jawaab ka soo bixisay waxaan eegaynaa jawaabta ay soo bixisay Xamdi Kuwiin iyo siday ugu falcelisay arrinkan Xamdi Kuwiin siday ka dhahday wada eegno ku ciisha propagandada aflagaadada dumarka
iyo ceebaha iyo cayaha iyagoo dumar la dhashay oo dhaleen oo waxaan ku yidhi ay qabaan oo la dhasheen oo dhali doonaan ayaa rag baa jiro ku ciisho ku tamariya aflagaadada iyo barabagaadada dumarka raggaasaan caawa la hadlayaa waxaa jirtay saakun baan ku arkay facebooka inay yaroo aada raataa oo aragiisuba aanu ku sheegin qof baaba wax kaa soo sheega oo hadalkiisa markaad ka yaabto codkarnimadiisa ayaaba tiraahdaa waa nina iska daawaa way ka dhacday ama saasaabay ka noqotay laakiin midaad moodo inay gaaji ku raagtayo codkiisuba codkarnaan ahayno hadalkiisuba aanu ku sheegin ayaa wuxuu waxaan ku maqnaayo xogogaal arrin xogogaalaan idiin wadaa in badanaa soo baaray xandadweyno intuu ninfankii ka saaray tiri business baan furanayaa sidan iyo sida iyo sida fulubala ayaan ku maqnaayo arrinkii baan soo waday horta kaafi baa tibaan ku leeyay ceebaha dumarka iyo waxaan ku yidhi propagandada u arsaaq doontay intay dadka ilaahiya arsaaqaya fataax leeyiin ayaad adigu been iyo kaatibnimo iyo wax maalinta qiyaamo la isugu dambayn doonad markaa u furatay qalbiga inaad cayr ka tahay baan kuu sheegaya adiga iyo nooca kula midkaaba adiga iyo nooca kula midkaadana ee kula midkaa ee arsaaqka doona xamdikuwin waxay u jawaabaysaa wiilkii hadalka kasoo sheegay waxay leedahay dad baa jira oo u furtay yutuubyada inay ka arsaaqaan fanaaniinta beenay ka sheegayaan hadal noocaasay leedahay balse jawaabta gadaalay jirta aan kusii socon ka raadinaya nolol maalmeedkii caliya aflagaado iyo been abuur hablo hore badan baa la wadway niiliyaha oo adiga inta noocaagaas hadda ilma xalaal ma odhan karo waa ilma xalaal because qof hooyo dhasho gabadhi dhashay oo ilma xalaala halkaa intuu soo fadhiisto been abuur intuu sameeyo qof bini aadana ceebihiisa iyo propagandadiisa ma wado ma garatay maan jeclay inaan ka soo hadlo si kastoo igu wada jireen ama aniga ay igala hadli jireen ama waxay doonaha soo qoraan kamaan jawaabi jirin laakiin waxaan caawa uga soo hadlay uga soo jawaabay soomaalidu waxaa yidhi dhakariyay leedo waxbay ku maqashaa qaar badan baa istaalan doona wax xaqiiqa waa run waxaan ku leeyahay qalbigaad fakri ka tay qalbigaad aada fakri uga tay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha aad iga samaynaysa intaad halkaa kamarad hawl u gashay ood kamarada usoo qaadatayoo ummad dhan oo ku daawanaysa aad been u sheegayso isku qajil baan ku odhan lahaa oo camal intan dhaama raxmaankaan ku weydiinaya ilaahay ha ku siiyo marka hore intaad isu hawlayso qof beenaad ka samaynayso oo leeda war xaqiiqa kuwa dhagaysanayana waxaan leeyahay ilaahay dee wax dhaama haydi siiyo intaad kaatibka halkaa soo fadhiistay aniga iyo hablo badan oo sharaf laba wax ka sheegaya adigana camal alla beenaha iyo dee wax laysooga dambayn doono afkan aad buu u fududiyay markaad leedahay qof been abuur ka samaynaysa lamaa laakiin horta muuqaalkuu dheer yahay ilaa iyo wuxuu soconaa 7 daqiiqo balse camuuman xamdikuwin waxay beenisay in aysan u joojinin guur iyo wax lamida fanka balse ayada iskeeda u joojisay jawaabtaana waxay u jawaabaysay dax filmis oo iyaga kasoo hadlay oo sheegay in xamdikuwin ay fanka uga baxday nin guursaraway awgiisa kadibna ninka guurka uga baxay xamdikuwin oo arrinkaas ka xanaaqday ayaa kasoo hadashay sidaa wada taabateen muuqaalkii wiilka waa aragteen iyo midka xamdikuwin kii run sheegaya iyo kii been sheeganaya ilaahay og anagana xaqiiqda ma sheegi karno balse muuqaaladooda iyo waxyaabahay ka dhaheen waa kaasa intaasaan kaga hadleen maanta barnaamijka dhammaan daawadayaashana daawanaya waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan kugu cusub yahay fadlan like saar muuqaalka subscribe noo saar si kugu soo dhaca muuqaalada aan soo gelino mar walba muuqaalka xigana la soco insha allah